dulqaado adduunkan waa laba maalin waa laga tagayaa waxba ma ahan waxaa leeyahay wiilasha Soomaaliyeed way dhacdaa in gabar walaashiina aad ka oysiisiin markasto sharma boyna waxaan leeyahay sida aad ku kacday waa arrin doqonnimo ah fadlan haddii aad aragto fiidiyooga. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحبتي غالي قاعد سو دواده ميل كستا جوجتان او walaalkiin de qaloocow channel hadaad kanaalka cusub tahay subscribe ka like tasuulka ina saartaan isku daya maanta waxaan idin wadaa fanaankii weynaa ee da'da yaraa ee Muqdisho gilgilay ee dawladda Soomaaliya hataa gilgilay oo la yiri dhalinyaradii ardaydii wuxuu isagay raaceen isagay taageereen isagay daba galeen wax la baranayo ma jirto waana garanaysan waa nin caan ah ee baraha bulshada haysta ee la yiraahdo Sharma Boy waa ninkan gadaashayda taagan gabadha uu aroosana waa gabadhan hadda Muqdisho ku aroosay meherkoodu ka dhacay gabar la yiraahdo Iqro ee Soomaaliyeed Iqra Ahmed Abdi Jaamac إقرأ محمد عبد الجامع شرما بوي وحو إقرأ كسميي أرين فورحن أو أمت الصومالية ديبايسا قف كستو دمير أما قبر لطلتي أما ولا لطلتي أما هو يتشي أما قبر لطلي أما قبر لطلي دونا تاس أرين دا سوحيدين ديبايسا وحا آن ربا شرما بوي فنان ما أنت صوابحي الرجال الصومالية تبقى شيء هي سيسة ديجستي بحي Sharma Boy waxa uu keenay Iqro xiriir ba ka dhaxayay muddo adiga sanad ah ba xiriir Iqro iyo Sharma Boy uu ka dhaxayay Iqro iyo Sharma Boy xiriirkii ka dhaxayay wuxuu isku bedelay in la is aamino in la is dhax galo waa garanaysaan wiil dhalinyaro ah oo hadda codkiisa baraha bulshada laga xiiseeyo ummaddu taageersan tahay maslaxyada fuuli kara hadli kara heesi kara Sharma Boy gabadhii Iqro ahayd waxaa dhex maray adiga wax laba qof oo lamaana ah ama laba qof oo is aaminay dhex maray baa dhex maray Iqro waxay aamintay wiilka dhalinyarada ah ee walaalkeeda ee magaranaysa kalsoonidiisii ee saacad walba telefoonkeeda soo wici jiray saacad walba ka warhayn jiray saacad walba waxay ku nooshahay waxay u baahan tahay wax walba la garab taagnaa bay aamintay Iqro waxa ay samaysay Sharma Boy waa isku dhiibtay Sharma Boy Iqra hadii isku dhiibtay Iqro waxay noqotay qof culus oo uur leh ama xaamilo ah Sharma Boy markuu ogaaday Iqro u sheegtay Iqro iyada ka sheekeynaysa qisadan iyada ka sheekeynaysa markii uu ogaaday Sharma Boy inay Iqro uur leedahay wuxuu isku dayay isaga oo gabadhu hadda aroosay muddo yar la sheekaysta oo aan ummaddu wali isku dacaayadeen ee ummaddu isku ogeyn ummaddu ayna usoo banaan bixin usoo banaanka bixin waxa uu sameeyay Iqro inuu Kenya inuu Iqro u diro oo yiraahdo family Iqro Kenya u degan family-giina aad halkaas intaan arrintaas ana dhameynaya meherkanu waa dhacaya iskaga soo hawgadiso u bax Kenya uu Iqro u diray Sharma Boy markuu Kenya Iqra u diray Iqra way aamintay waa gabar Soomaaliyeed waa gabar walaasheera aad baan ugu xumaaday wuxuu guursaday gabadhan buu Sharma Boy Muqdisho ku aroosay Iqra way ishaan weyday waana gabar xaamilo ah waana gabar uur leh waana gabar dhalinyaro ah waana gabar aan uurka maanta ay leedahay ku yeelan meher ama xalaal laakiin ay aamintay ninka dhalinyarada ah ee walaalkeeda Sharma Boy halku ka astur lahaa gabadha ilaa wax uu isagu leeyahay qof uu sanadada socdeen qof uu garab taagnaa uu ahaa Sharma Boy Iqro wuxuu kula hadlay hadalla aan munaasib ahayn anigu gabar baan guursaday aroos baan gelayaa macnaheedu kuma rabo aad baan ugu xumaaday qisada bal waxa aan rabaa inaan idin kala dhaxbaxo idinka iyo Iqro waxa dhex maray Sharma Boy iyo Iqro kabacdi Iqro waxay idinka baahan tahay talo tusaale intaba way idinka baahan tahay dadka Soomaaliyeed ee jecel walaalahood hooyadood gabadhiis nin kasta oo jecel gabadhiisa hooyadiis in aan wax la yeelin in aan sharafteeda laga baskooladeyn
marka iqro waxay ahayn weyday inaad ila daawataan baan rabaa idinkoo raalli ah ila daawada iqrawaad balse walaashaydi macaan waxaa xiriir kala dhexeeyay Sharmaboy sida ay sheegtay Sharmaboy ayaa xiriir kala dhexeeyay heshiis weyn ayaa dhex yaalay balanti inuu ka baxay aroosna uu galay bishii intii ku guda jirtay 20 bir ayuu joogtay munaa kala gursad waa arin laga naxo oo arin xasaas wallahi hadda arinteeda wax la soo koobi kara ma ahan laakiin adduunyada bidaatanka inta aad arkayso maaragtay wax walba waa filo kolay dib ma lahan hadda aniga laakiin warxumada kale aan diidanaha maahane kama xumi naag waxaa gursana sama laakiin walaalkay Sharma waxa ugu xumahay warka kale oo isoo qoraan idin la wadaagi doonaa uguwan uu ka galay waxaan dhihi karaa way tustaa baayo balooga uu saaray laakiin siyaabo kala jiro qofka loo reebo balan ka qaadin oo waqti dheeraadan la sii qaadan ka xumi balse waxaan ka xumahay beenta ka xumahay maahane hooskaaga kama xumi walaalkay Sharmaboy كيف كوبنا كلنا هرو صعب مركب حسدا وحن برانك أنا يجينا سدا مركب ويدين سو إلى هذا يوكاسا تسي horta asxaabtayda qaaliga ah inta kama arki kartaan balse erayo waxay isla wadaageen xawaa sawirkiisa ku saarane gudaha maana WhatsApp-ka ma nolosheeda Sharmaboy abaa asxaabta arinta dheendheena marayaan kaas ay soo diro naagta nolosha saamaynayga dhamaan camal kan naagta sangal camal faraha waa weelka waaye dulqaado adduunkan waa 2 maalin waa laga tagayaa waxba ma ahan waxaa leeyahay wiilasha Soomaaliyeed way dhacdaa in gabar walaashiina aad ku oysiisiin markasto Sharmaboyna waxaan leeyahay sida aad ku kacday waa arin doqonnimo ah fadlan hadii aad aragto fiidiyooga waxaan ka codsanayaa gabadhaasina blogga ka qaadid oo aad nolosheedana si ay u farxad gasho hadallo wanaagsan aad kula hadashid qofka bini'aadamka niyada loo dhisaa muhiim haddii ay jirto maxkamad dadka qaladkooda qaadana oo ku qaadi lahaa laakiin ma jirto maxkamada waxa la geeyaa qof uu soo dilo ama qof uu soo daqrasamo laakiin adiga daqarka ay geysatay maaha mid banaanka yaal waa daqar qarsoon raggan way u badan yihiin daqradaas oo kale inay qofka dumarka ay mar walba u weedaarsadaan iyo jabka intaas oo la eg oo kale inta taxaan ka qabsanay gabdhow inaad ka fikirtiin aniga sawirkiisa ma la tuuri karo walaahi bilaahi gabar walaasheena iqraacday waxaan u maleynaa arintan laga fogaado qof walbo qofka uu la socdo si calashaan asagoo digniin ah qalbiga sida walaasheen ku dhacday ugu dhici karta marka qalbigaaga qof ha kalsoonida ugu weyn oo lagu siiyay maxay tahay telefoonkayga daqiiqad muusan ka maqnayn aniga waxaanay tidhalanteed hebel la noqday Soomaan telefoonkayga maalintiisas 24 saac oo ku jira awadi oo ku jira caawa 8 saac xataa ludo la isla ciyaaro oo laanu la isla ciyaaro waqti la wada qaadanayo badana asxaabta markii la joogto xataa uu ku soo wicin jiray sida ay sheegtay Soomaan marka muddo kooban intaasna waxaan ku ogaaday mar ayaa ogaaday dibkeeda hadda marka waxa laga rabaa waxaan leeyahay sida aad ku kacday waa arin doqonnimo ah fadlan hadii aad aragto fiidiyooga waxaan ka codsanayaa gabadhaasina blogga ka qaadid oo aad nolosheedana si ay u farxad gasho hadallo wanaagsan aad kula hadashid iska dulqaado adduunkan waa 2 maalin waa laga tagayaa waxba ma ahan waxaa leeyahay wallaahi arrin laga xumaado xumaan lagu sheego samcad nin leh oo gabar Soomaaliyeed waraa fiiri ninku markuu lacag yar uu iska dareemo ama uu iska dareemo caanimo maaha gabar Soomaaliyeed oo caar ah oo walaashiisa inuu ku digto oo jimsigeeda ama nafteeda wax u dhimo marka waxaan leeyahay wax rag isku dili jiray baa Sharmaboy maanta ku dhaqaaqay isagoo nin caana ah oo fanaan ah oo wiil Soomaaliyeed ah aad baan uga xumahay dhaqan xumadan maanta uu gabadhan ku sameeyay walaashiina haddii aad Soomaaliyay uga dhidhin weydaan waxaan aaminsanahay kan daawan doona kan maqli doona warkaygan in uu walaashii ama hooyadii ama gabadhiisa oo wax u dhimayso gabar Soomaaliyeed wallahi baad u jeclaan walaasha in la xumeeyo walaasha in wax la yeelayo walaasha in xumaatada lagu la dhaqmo marka waxaan ku leeyahay ka dhiidhi ka xumo
كماك شرم بوي شرف هدو ليه قبر الصوماليات انتو قبرنا وقورسن كرام شرم بوي انا قبرنا نحو قورسي لكم هايستو واويل نيراء وقبر الصوماليات معنيه ماها يعني قبرنا كو هايستو لكن قبر الصوماليات انت جيركيدي لو دحاي جنسيgeedii loo dhacay magaceedii loo dhacay sharafteedii loo dhacay in lagu xadgudbo oo si foorxun oo dhaqan xumo ah lagu sameeyo wax la isku dilo Sharma Boy waxaan leeyahay arinta aad samaysay umada Soomaaliyeed gabadha eeqro raali gelin iyo wixii adiga ku qabta dhi'aaneed ka la qaadaya ilmahan hadii aad adigu dhashay ee uu biyahaagi yahay ya haduu biyahaagi adiga yahay cid aad saari kartid iyo wax aad inkiri kartid malaha maanta horumar baa la gaaray dhi'aaneed baa laga qaadaya gabadh ilmahana waa laga qaadaya ilmuhuna waa dhalanaya Sharma Boy waxaan ku leeyahay arinta foosh xun ka digtoono arin sabcadaada iyo magacaaga taagaysa maaha gabar Soomaali inaad jirkeeda ka ganacsatid inaad jirkeeda baabi'isid in aad si foox xun u dhaqantid in aad wax wanaaga tusin gabar walaasha awey gabar hadad labada gabdhoodba maanta adigayna tan naagtaadi tahay tan ilmahaagi baysida aad baan ugu xumahay arinta uu Sharma Boy ku dhaqaaqay Sharma Boyna waxaan leeyahay hadii aad magac iyo samcad ka rabtid umada Soomaaliyeed gabadha aad foolxumada kula dhaqantay foolxumada ku samaysay waa in aad ka bixisaa apologies iyo raali gelin iyo blog oo aad ka qaadid iyadoo aad la hadlashid iyadoo aad qancisid adigoo ilmahaaga qaad reality marka laga hadlo Sharma Boy anigu magac inaaga kale uma hayo Sharma Boy baan u hayaa run baan idin sheegaya inaaga kale aan hadda ugu yeero ma garanayo laakiin Iqra Maxamed Cabdullaahi waxaan leeyahay gabadh Soomaaliyeed weeye gabar hiil idin ka baahan weeye gabar maanta social media soo gelisay oo ka cabanaysa ninkii iyada xumeeyay ama wanaag awal uu ku soo jiitay waa dumar waa walaasha maxay u siisay maxay u qaatay maxay u galmooday waxa soo dhan walaal waxba kuma qabanayso waxana waa gabar waa caar waa dumar waa walaasha waa maskiin maaha inaad ku digatid maaha inaad samcadeeda iyo sharafteeda aad meel uga dhacdid war aad baa idin salaamaya meel kasta jirto waxa idin leeyahay Sharma Boy waa ninkaas labada gabdhoodna maanta midna isaga qaba midna isaga xumeeyay Sharma Boy sharaf haduu leeyahay samcad haduu leeyahay wanaag haduu leeyahay gabar walaashiisa maanta intuu ureeyo kama soo cabateen aad baan uga xumahay Soomaaliya waxaad u horumar weydin oo uga dhiidhin weydin oo uga toosi weydin waa sidaas gabar walaashiina marka nin dhalinyaro ah oo idinka lacag idinka gurto oo idinku aad taageertaan oo idinku hayeysaan oo kor u qaadaan markuu gabar walaashiina kula dhaqmo sidaas wallahi aad baan uga xumahay aadna ugu murugooday arintana waxaan leeyahay meel kasta inay gaartaan rabaa page-ka Facebook sii share garaya sii follow garaya suulka saara si uu gaaro asxaab kale oo nolol wadaagto Sharma Boy gabadha ciwaankeeda lambarkeeda intaba waa haynaa talageliyadana wixii talageliya hoos ba ugu soo qori kartaa way ku xirantahay page-kayga YouTube-kayga intaba way ku xirantahay aad baa idin salaamaya meel kasta